السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحاب تقاليقة muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaa jiro dhalinyaro badan oo u hanqaltaaga inay noqdaan youtubera balse aanan garanaynin wadadii ay u upload garin lahaayeen muuqaal. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaalka idinku tuso wadada ugu saxan ee aad muuqaal u upload garin karto youtube-ka iyadoo aynan ka dhicin xitaa qalad. Maadaama oo aad tahay youtuber cusub waxaa laga yaabaa marka hore inaad ku wareerto sidee ayaan muuqaal u upload gareeyaa youtube-ka, balse maanta aniga ayaa kuu tusi doono. inta aanan muuqaalka guda galin waxaan kaa codsanaya inaad nagu soo biirto muuqaalkana like inoo saarto. Marka hore soo furo Chrome-ta oo waxaad ku qortaa YouTube Studio. Markii aad intaad ku qorto haddii aad soo dejisatay YouTube Studio si toos ah YouTube Studio ku aadin doonaa midka app-ka ah. Laakiin haddii aad soo dejisanin wuxuu ku aadin doonaa YouTube Studio dashboard-ka. Haddii marka hore midkan oo dashboard-ka ayaad soo galaysaa. markii aad sidaan u soo gasho qaybta yar ee aan hadda calaamadda idinka ka calaamadeed ku dhufanaysaa ka bacdi waxaad ku qoranaysaa upload meesha ku qoran ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato waxaad ku qoranaysaa media baker ayaad ku dhufanaysaa ka bacdina muuqaalkii aad rabtay aad soo jus garaysanaysaa meeshuu ku jiroba. markii aad soo jus garaysato sidan ayuu ku tusi doonaa ka bacdina qaybtan ayuu ku keeni doonaa. qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan title-ka muuqaalka. dadka badan waxay aaminsan yihiin title-ka uusan faa'iido lahayn, laakiin title-ka wuxuu ka wanaagsan yahay xitaa ama uu ka fiican yahay haddii la fiiriyo thumbnail-ka. maxaa yeelay title-ka waa waxa ugu horeeya ee muuqaalka lagu dooranayo. waa inaad title-ka iska saxdaa oo si wanaagsan oo muuqaalka uu ka hadlayo waxa uu muuqaal ka hadlayo aad ka dhigtaa. description-kana waa muhiim isagana inaad description yeelataa. waxaa jirta qayb yar oo description-ka mar walba uu kugu soo qormayo si automatic ah. aniga ayaa qaybta dambe ee muuqaalka ka tusi doono. markii aad intaan sameyso description-ka waxyaabihii ugu muhiimsan aad ku qorato. hadda muuqaalkan aniga upload gareeyay thumbnail hasaarin buu leeyahay oo shorts ayuu yahay. waa muuqaal shorts oo tusaale ahaan ayaan baan ka rabaa. hadda qaybta hoose ee waxaad tagaysaa ay ku qoran tahay muuqaalkan ma waxaa loo sameeyay dhalinyarada ama dadka 18 ka yar. qaybtan waxaad dhahaysaa no kids ayaad dhahaysaa sababtoo ah kids haddii aad dhahdo muuqaal caruureed ayuu noqonayaa. qaybta kasii hooseysan waxaad dhahaysaa 18 sano wixii ka badan iyo wixii ka yar way daawan karaan. kabacdina qaybtan waa qaybta add title-ka ama muuqaal lagu soo dhex daray muuqaal kale asaga oo socdo. markii sida kan oo kale tusaale ahaan aniga aan ku soo daray markii aad sidan ugu soo dardarto kabacdi aad ka soconaysaa oo next ayaad dhahaysaa. sida ujeedaan qaybtan markii aad ku dhufato oo ku soo daraysaa waa muuqaalka la soo dur saaray ama qoraal muuqaalka lagu soo dhex qoray oo muuqaalkaas la soo daawado kale oo tusaale ahaan muuqaal kale oo bari aad soo dhigtay oo kale ayaad soo dhex gelinaysaa. bacdi next ayaad dhahaysaa. markaad next dhahdo qaybtan ayaad dhahaysaa public. haddii aad muuqaalka rabtid inaad public ka dhigto public aad dhahaysaa oo dadka si ay u wada arkaan. private iyo waxyaabahaas kale kama dhigaysid oo public aad ka dhigaysaa. qaybtanna haddii aad scheduled haddii aad muuqaalka rabtid inaad waqti geliso kale. haddii aad rabto muuqaalka waad sameysanaysaa waad iska dhiganaysaa schedule ayaad u sameysanaysaa kabacdina waqti ay dadka ku badan yihiin ayaad gelinaysaa youtube-ka. schedule ayaa lahaa waad aragteen oo qaybtaas ayaad u sameysanaysaa oo waxyaabaad ku qornaysaa. qaybta kale oo si automatic description-ka sidoo ku qoray waa halkan. qaybtan hoose ka hooseysa qaybta upload-iska ayaad imaanaysaa kabacdina qaybtan description ku qoran ayaad description ku qoraysaa. markaa description-ka aad ku qorto iyo waxyaabaha aad rabto save ayaad dhahaysaa. muuqaalkeena maantana intaas ayuu ku egyahay.